عليكم أصحابتي السوداء وهذا من تستقبلين كأكيد جوتان I don't think إني مقلايو عادي لي مقلي واينة هدوتي عطسو صاري دونا مقال كان إن شاء الله جوي قواكا سامانتي جوي الروبات راحة كفاية إنده لوك الفرنا هنا واسي وطا سوري هذا مركل أصحابتي إذا ما أنتو حربة إنا كهذا درينكيغا وكو سابسن مقال وصادق بيجكيس فيسبوكا sidoo kalena YouTube oo leeyahay wiilkan la dhaho Cabdicasiis really oo runtii ahnin ummadda Soomaaliyeed meel fiican uga soo baxay Ilaahay khayr ha siiyo muuqaalkaas oo aad iyo aad aniga shakhsiyan ii damqay kulli intii hooyo oo dareen lehna aan rajeynaa inuu damqin karo ama uu qiyaasi karo xanuunka iyo dhibka iyo walaaca iyo dareenka ee hooyadaas ee marayso iyo waliba ilmaha yar idiin sheegayo waa ilmo yar oo xanuunsan oo qadarka Ilaahay ku dhacay taasoo sabab u noqotay inuu isbedelo muuqaalkiisi iyo aragiisi kadibna uu u noqdo dhibane ummadii uu ku dhex noolaa Soomaaliyeed ee muslimka ahaa inuu u noqdo dhibane ayagoo ku aflagaadenayo ama ku dhibaateenayo sidoo Ilaahay cunugaas yar u bedelay aragiisa yaa Ilaahay baa midka qadaray cunugaas inuu shalay ku noolaado qurux cunug yarka u jeedaan waa kan idin muuqdo haddana maanta xanuun inta u keenay ku ibtileeyay oo xanuunkii cunuga uu sidaan muuqaalkiisa u bedelay maxaa dhaca marka cunuga yarka markii ummadda ay dhihi lahaayeen ummadda muslimka ah uu ku dhex nool yahay uu ka dhashay qofkii soo gaaro adeer waa roonaane hooyo waa fiicnaane habriyar waxba ma aha waa qadar Ilaahay ku sabar niyada loo dhisi lahaa la walwaali lahaa baa cunugii yaraa waxaa la leeyahay sida hooyadii sheegayso waxaan muxuu yahay ma halba maxay had waxay tiri ma daanyeera subhanallah waxaas miisan ahayn xaraam halkaas waxay ka cadeynayaan inaan nahay ummad tarbiyadooda ee aad u hooseyso qaasatan inteena joogto wadankii wili waa ummad tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda ee aad u liidato sababta saas u dhahay waxay tahay waxa xasuustaa markaan wadanka aan deganaa ku cusbaay qurbaha ku cusbaay waliba Yurubta inaag ee ka shaqeysay iskoola luqadda ku dhiganeen ka shaqeyn jirtay ee ragga iyo dumarka Soomaaliyeed ku dhihi jirtay markay maqaayada tagaan ee dhahaan waxaas keen ama waxaas isii ee dhahayaan markaas waxay leedahay waxaan dhahdaa ma isiin kartaa yacni qaabka wax loo weydiisto dadka ixtiraamka in la baraayo ummadda dhan walba ummad ka baaba'da inaana ay muuqata Ilaahu Rabbi Raxmaan oo cunugan yarka miskiinka caafi Ilaahu mid awood badan oo xamilo dhibka oo ma aragti ku dhex maray dadkiisana ka dhig Ilaahu Rabbi Raxmaan oo ummadana qalbiyadooda jilcay Ilaahu aqligooda iyo dareenkooda soo celi ummadda Soomaaliyeed wallahi billahi naxariisteena iyo wanaageena buu yar yahay